barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga oo uu si sanadla ah u soo qabanqaabiyo una maalgeliyo bangiga Premier Bank ayaa laga daahfuray magaalada Hargeysa waxaana daahfurka barnaamijka ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda mas'uuliyiin gudoomiyaha ururka bangiyada iyo gudoomiyaha bangiga maalgeliya barnaamijkan sanadlaha ah ee tartanka halabuurka ganacsiga madaxa abaabulka iyo isku duubaridka ee barnaamijkani Xamse Cumar Kujoog ayaa ka warbixinaya qaabka tartamayaashii kala duwanaa ee sanadkan barnaamijka soo xareystay loo kala reebay baahinay tartanka halabuurka ganacsiga waxa soo xareystay oo ka soo jawaabay baahintii 799 ganacsi oo ka kala socda dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland 799 ka ganacsi waxay stage-kii labaad ama marxaladii labaad u soo gudbay oo soo buuxiyay qorshe ganacsiyeedkii aan u dirnay 98 ganacsi 98 kaasi ganacsi markii guddida kala saaraysay barnaamijka halabuurka ganacsigu ay u fadhiisteen ay eegeen dhammaan shuruudihii loo xidhay waxay isla garteen oo soo baxay buuxiyayna shuruudihii loogu talagalay 20 ganacsi oo bisha Ramadaan sida ay u dhantahay aad halkan ka daawan doontaan halabuurkooda ganacsi idamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa marxaladii uu barnaamijku soo maray haatanna waxaynu joognaa furitaankii barnaamijkani muxuu kaga duwanaan doonaa barnaamijyadii sanadadii hore mar kale waxa faahfaahin arintaasi ka bixinaya madaxa abaabulka ee barnaamijkani Xamse Cumar Kujoog barnaamijka halabuurka ganacsigu waa uu ka duwanaa sanadihii hore waxaana uu runtii xog fara badan oo aanu dib ugu noqonnay sanadihii hore ee tartankani uu soo dhacay aanu ka fakarnay in dib loo eego qaabka uu tartankani u socdo waxaana aanu isla garannay in la dhiirigeliyo ganacsiyada yaryar ee jiray sanad iyo 2 iyo 3 ee suuqa ganacsiga ku jira isla jeerkaasna u baahan in dhabarka la taabto hore loo sii riixo Nuuraddiin Cabdi Cilmi gudoomiyaha bangiga Premier Bank ayaa dhinaciisa ka warbixinaya ujeedada bangigu ka leeyahay barnaamijkani tartanka halabuurka ganacsi waa tartan si sanadlaha uu soo qabanqaabiyo una maalgeliyo bangiga Premier Bank sanadkii 6 xiriir ah ayaan insha Allah hirgelin doonaa wuxuuna si rasmi ah looga baahin doonaa warbaahinta kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland bisha barakeysan ee Ramadaan tartankan ujeedada bangigu ka leeyahay waxaa ka mid ah inuu ka qayb qaato carinta hal abuurka ku jira maskaxda dhalinyarada Soomaaliland iyo inuu ka qayb qaato shaqo abuurka iyo sidoo kale barnaamijku wuxuu la jaan qaadayaa ujeedada guud ee bangigu ka leeyahay maalgashiga horumarinta iyo kobaca dhaqaale dalka tartamayaasha aan barnaamijkani ku guuleysan sanadkan wuxuu bangigu u ballan qaaday inuu siin doono deyn aan faa'iido saarnayn si ay ganacsiyadooda ugu horumariyaan mar kale Nuuraddiin Cabdi Cilmi gudoomiyaha Premier Bank ayaa faahfaahin ka bixiyay arintani barnaamijkan sanadlaha ah sanadkan waxa ka soo qayb qaatay oo tartamayaasha kama dambaysta noqday in ku dhow 100 tartame oo markaa laga soo xulay 20 fikradood ama tartame ee ugu fikirka toolmoona iyadoo 20 ka tartame markaa ay ka soo dhaxbixi doonaan 3 guuleyste guuleystayaashu sanadkan waxaan ugu tala galnay qadar deeq ah oo dhan $16,000 oo tartamayaasha guuleysta ay heli doonaan waxaan sidoo kale halkan uga ballan qaadaynaa tartamayaasha aan guuleysanin laakiin la yimi fikradaha ganacsiga hirgalay inuu bangigu ugu ballan qaadayo inuu u maalgeliyo ganacsiyadooda uguna maalgeliyo deyn aan rabi ama faa'iido lahayn mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha ururka bangiyada oo iyaguna ka soo qayb galay daafurka barnaamijkani ayaa dhinacooda bogaadiyay Premier Bank ayay tahay inaan maanta ka soo qayb galo oo la igu sharfo furitaankii barnaamijka halabuurka ganacsiga dhalinyarta iyo daayarta barnaamijkan oo Premium Bank muddo dheer uu soo waday sanadka oo ah sanadkii 6aad waxaynu leenahay bulshadiina wax weyn baad u soo kordhiseen halabuur cusub baad u soo kordhiseen waliba waxaad u soo kordhiseen dadkii ugu baahida badnaa oo dhalinyarta ah waxaan leenahay idin abaal
niqi kari mayne jazaakum allahu khayran ilaahay miisaanka iyo ajar ha idinka siiyo farxad weyn bay runtii ita inaan sanadkii lixaad goobjoog ka nahay barnaamijkan dhalinyaradu ay ku tartamayso fursadaha ganacsiga maalgelinta ah ee ay ku soo bandhigayaan halabuurkooda ganacsi iyo afkaarta ay hayaan ee ay u laayihiin maalgelin baankuna runtii uu fursadda ka faa'iideeyey ee dhalinyarada u diyaariyey lacag dhan $16,000 iyo fursado kale oo maalgelinada baanku si gaara uu ugu maalgelinayo dhalinyarada aan ku guuleysan weyda barnaamijkan farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan aadka u qiimaha badan ee sanadihii u dambeeyey dalka ka socda ee bangigani uu ku maalgelinayo dhalinyaro la tijaabiyey oo la tartansiiyey oo loo tartansiiyey fikradaha hal-abuurka ganacsi kuwaasi oo dhiirigelin wanaagsan u ah dhalinyaro fara badan oo sanadkiiba ku xisaabtanta inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan oo runtii aan markhaati ka ahay dhalinyaro fara badan oo maalgelintaasi heshay oo iyaguna helay inay businesskooga iyo ganacsiga ay doonayaan ay furteen maantana dalka ka ah ganacsato dalkana ka ah dad cashuur bixiyaala isla markaasina u abuurtay fursado shaqo iyaga oo sidoo kale sii shaqaaleysiiyey dad kale oo muwaadiniina waxay tusaysaa runtii in bangigan ay ka go-an tahay inuu dadkana u shaqeeyo isaguna dadka wax ku soo celiyo waana ta loo baahan yahay in bangiyadana kalena ay ku daydaan si dhalinyarteena loogu abuuro fursado fara badan barnaamij muddo socday oo 6 sanadood socday sida ay sheegeen oo ku saabsan dhalinyarada oo lagu tartansiyo sidii ay fikrado ganacsi u sameyn lahaayeen fikradahaasina ay marka dambana abaalmarin ku bixiyaan marka dambana bulshadu ka wada faa'iideysato waayo inta ku guuleysata oo dee lacagta ku hesha iyo inta amaahda ku heshaba mooyaane inta kale dadweynaha dhegeysanaysa ta fikirka way ka faa'iideysanayaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin maadaama ay silaahdeenba wariyow shaqadiinii iyo dhalinyaradan bilaa camalka ah iyo waddanka iyo horumarkiisa iyo ganacsiga iyo horumarkiisaba dee saameyn fara badan baanka u sheekha dhalinyaradan waxaan leenahay aan fariin halkan uga gudbinayaa in ay ma aha fikir cusub un qofku inuu doono oo wax samada ka soo degaya ma jiraan ganacsigu waa challenge badan yahay waxaana ugu horeeya ganacsiga qofku inuu aamin yahay haddaad isku hubtay inaad aamin tahay oo waxaaga iyo waxa dadka iyo waxa ammaanada iyo wixii kale ee wixii aad lahaynba aad ka soo qaado inay ammaano tahay ganacsiga ugu guuleysanaya that's number 1 iyo dee inaad sabir yeelato aad waxaan aad ka shaqaynayso aad aaminsan tahay barnaamijkani waxay bulshadu si toos ah ugala socon doonaan warbaahinta laga bilaabo 3 bisha Ramadaan ilaa 23 bisha barakaysan ee Ramadaan